igula heshiiyey in xaaskiisa uu iga qariyo aniga waxaan uga golan leeyahay in lacagta jaamacadda kaliya ninkan aan ka helo laakiin lacag fooqal aqliya ayaa intii guurka qarsoodida ahaa aan ku wada nooleyn ayuu isii jiray jaamacaddu iga bixi jiray wiilkaygii la igu soo dayriyey ee kii dhalay iyo hooyaday iyo walaalahayba ay igu dayriyeen ayuu caanihiisa iga bixi jiray nolol midda ugu fiican anoo mooda inaan ku jiro ayaa waxaa dhacday maadaama ninkan uu igula heshiiyey in uur aanan bataatanba inaan yeesho uusan rabin anaan ku yiri walaalo aniguba jaamacadan dhigtaa uur ma raba inaan yeesho ayaan waxaan is iri taqriiban 3 sano oo kaamil ah markaan uurkii iska ilaalinayo oo kaniiniga qurbuha asagu iiga keenayo oo boorsada markaan jaamacadda u socdo aan hore u sii gashanayay ayaa waxaa dhacday tiri ilaa markii dambe inaan ku fakaranayaa fursadda markuu soo martay mar labaad kuma soo mareydee calal aqal ninkan wacyiga jira beri siduu u qaato uur u yeelo kaniinigana iska dhaaf waxaan islahaayay tiri uuran kuu yeeshay haddii aan iraa inuu ka soo qaadayo ubadkiisa kuwa uu hadda koolkoolinayay uu dhalay heer iyo habeen uu la hadlaayo inay la mid yihiin laakiin weji kale ayuu iila soo baxay anna markuu wejigii iila soo baxay ayaan quda degay maalin maalmaha ka mid ayuu inta dubay ka imaaday hoteelkii aan ku kulmi jirnay asagoo xaaskiisa u wada dahab uu dubay ka keenay lacag fara badan uu bangi kala soo baxay uu mashruucyo iyo adduun ku kala samaysanayana wado ayaan waxaan eriyay tiri maanta waa maalinkaa ninkan ka faa'iidaysa laheed lacagtan dhac dahabkaana la baxso السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسو دو channelkayga ayaan goob doona mar kale isku soo noqod wanaagsan iyo muuqaal kale cusub fadlan hadaa igu cusub tahay soo dhawow subscribe iyo saar kamid noqo asxaabtayda hadaa hore ila joogtana muuqaalkan like iyo saar waana mahadsantihiin dhammaan walaalaha ku xiran channelkayga meel walba aad joogtiin waxaan ilaahay idinkaga rajaynayaa nabad iyo caafimaad inaad ku noolaataan asxaabta cusub ee kusoo biirtay channelkaygana waxaan leeyahay gacmo furan ku soo dhawaada channelku waa channelkiina waa mar kale iyo muuqaal kale cusub iyo qiso kale cusub intaan qisada u guda gelin walaalaha jecel in ay qiso ila wadaagaan maadaama commentiyada aan badanaa ku arko walaal halkee kala soo xiriiraa qiso ayaan rabaa inaan kula wadaago maalin walbo soo ma qori karo lambarkayga laakiin lambarka waxa igala soo xiriiri kara kaliya min fadlan kaliya qofkii rabo in uu qiso ila wadaago sheekadaada haddii ay noqoto sheeko nuxur leh oo soo jiidasho leh oo aan isku afgarano in ay mudan tahay in bulshada lala wadaago waa aan soo gudbinayaa haddii ay laa walaa tahana waa aan kuu sheegaa kaama qari doono oo waxaan ku dhihi doonaa sheekadan iguma socoto walaal macaato saa ula soco marka lambarkaas ayaad igala soo xiriiri kartaa haddii aad ii wadid qiso cajiib ah oo xiiso badan oo saameyn leh haddii qiso ay kalaam ay tahay yacni waxba saameyn na aanan lahayn nooma soo kordhinayso waa aa mahadsantihiin maanta gabadha qisadeeda aan noo wado waxaa lagu magacaabaa idil waxa ay ku dhalatay kuna soo barbaartay ilaa iyo da-deedii sodomeeyadiina ay kusoo gaartay magaalada muqdisho waxaan ku noolaayay tiri magaalada muqdisho waxaana la noolaa markii qisadaydu ay bilaabanaysay hooyaday aabahay iyo walaalahay waxaan ku nooleenay tiri nolol ahaan dabaqada dhexe anigu waxaan ahaa ardayad markii qisadaydu bilaabanaysana waxaan jiray da-da 15 sano mar alaale iyo markii aan soo qaangaaray ayaan waxaan kala kulmay faamilkaygii dhibaatooyin aad u fara badan qaasatan hooyaday waxaan kala kulmi jiray faquuq ba'an ilaa marka qaar aan isweydii jiray talow aabbahaa miyuu kaa qarinayaa oo hooyo kale miyaa ku dhashay waayo waxaan dareemi jiray walaalahayga kale inay hooyada iga jeceshahay inay aad ii faquuqayso xilligii annagu aan shukaansi baradka ahayn walaalahay haddii ay nin la hadlaan oo kale hooyaday waa ay la sheergaray jireen aniga waxaad moodaa in kalsoonidii in aan hooyo wax la sheergareeyo in ay dhinacayga ka luntay weligay iyo hooyaday haddii ay noqoto dhib iyo haddii ay noqoto dheef lama aanan sheergaraynin waxaan aaminsanaa in hooyaday sidii cadowgii aan wax uga qarsado marka la dhaho jacayl waxaan jeclaa aabbahay waayo aabbahay mana ila ficiltami jirin faquuqna ima tusi jirin naxariis aan isleeyahay way mudneed inaad hooyo ka heshidna waa aan ka heli jiray waxaan cuqdadaa ku koraba anigoo tii la yaaban ayaa waxaa dhacday in la igu wareejiyey islaan habaryartay ah oo hooyaday la dhalatay oo markaasi umul aheyd aad ayaan u farxay markii la idhahay guriga habaryar ayaa lagu wareejinayaa weligay iyo allahay ma arkin ilmo hooyadiis ka tagaayo oo ku faraxsan
inuu hooyadiis meelaan ahayn ku noolaado ama hooyadiis ka fogaado. anigu aad ayaan ugu faraxsanaa, laakiin gurigii aan isdhahaye nolol qurxoon ayaa kaaga bilaaba doonto iyo noloshii aad ku nooleed mid dhaanto, waxaan ugu tegay maadaama habaryartay ay arki jirtay hooyaday siday ii cabiidsato. xilligaasna aan ahaa gabar ardayada oo 12 jir ah, shukaansigna bilaaw ii yahay. horta waxay bilowday saa markay aragtay inaan qof la hadlaayaba sida in ay balaayo iyo faqsi igu soo aragtay, inay hooyaday taleefon usoo dirto, tilaabo walba oo aan qaado inay hooyaday usoo sheegto. kaaga sii darane ayadiina waxay bilowday ilaan hooyada oo ku sharfi weyday, hooyada oo la arki jiray inay ku gumaysanayso ku cabiidsanayso, walaasheedna naxariis kama sugayside sidii ay hooyo igula dhaqmi jirtay ayay bilowday inay igula dhaqanto, gabdhaheeda iga faquuqdo, waxbarashada inta iga reebto hool ii dirsato, gabdhaheediina sidii in aan anigu shaqaalo u ahay ay inta iskoolka anigoo hooshii guriga u haaya aadaan ayaa mararka qaarna inta iskoolka la iga xirto ayaan iska soo laaba jiray. waa ay ku farxi jirta habaryar, waxayna dhihi jirta hoosha ii qabo, haddii subaxii aad sida hoosha loogu talagalay u qabo weyso saan unbaad iigu soo noqone. waa aan dareemay meeshaana inaysan arxan ka jirin. ugu dambayntii aabbahay waa halka keliya aan u ordi kareen. aabbahay ayaan bilaabay inaan u cabaado oo aan iraahdo aabe gurigii habaryar la igeeyey dhibaato noocaas iyo noocaasa ayaan aabbo kala kulmay. aabbahay wuxuu bilaabay inuu hooyaday yiraahdo saan macquul maahana gabadhayda ii soo wad, ilaa hooyo iyo aabe ay isku dhaceen. ugu dambayntiina hooyo ay sidii igu soo celisay. aabeenadii ay isoo celisay waxaa ii bilaabatay ciqaab kale iyo maxaa walaashay uga soo tagtay, aragaaga inuu iga qarsoonaado ayaa rooneed. anigu waxaan ahaa qof aad u adag, u mayal adag. si kastoo ay hooyo ii disho, si kastoo ay ii dhibaataydo, qof un adee kasii qaada ayaan ahaa, ma ogiye wax isakay bedela ay ma lahan. ilaa ugu dambayntii waxaan hamiyey in gurigan mar un aan ka tago. waxaan isdhihi jiray nin kasta oo ila sheekaysto ilaahayow muu guur iga dalbado, noocuu doonaba ha noqdee, nin xun ha noqdo, nin fiican ha noqdo. adigu waxaan tamaniyey keliya in aan gurigeena ka tago, in aan naxariis meelaha kale ka raadiyo. gabdhaha aniga ila dhashay weli ma aanan arag gabar ka shalaynayso inay gurigan kusii noolaato ama gabar guur carar u qabto. waxaan iri gabar haddaan arko guur u cararaysa duruuf u kaliftay ayaa jirta. ugu dambayntiina waxaa dhacday in aan isbaranay qofkii nolosha naxariisteeda ama buugga naxariista ii furi lahaa. maalin maalmaha ka mid ah ayaa anigoo iskoolka ka imaaday waxaan isku baranay wiil dhalinyaro ah oo xilligaasi ii sheegay barasho kadib inuu waddanka mardhow kusoo laabtay, jaamacadna uu ka yimid. wuxuu ahaa wiil dhalinyaro ah oo xilligaasi gaari ku socday. barasho kadib waxaan kala qaadanay taleefanadii. xilligaasi waxaan haystay taleefan aan anigu qarso jiray oo gabar saaxiibadeeya ayadu mid ay iska bedeshay oo ay iska kaysiisay ahaa. silentii ayaan saari jiray si aanan la ii maqlin. ugu dambayntii wiilkii lambarkii ayaan ku dhajiyey. maalinkaas waxaad moodaa in aan baddareemayaba in albaabada risiqa, albaabada naxariista in ay ii furmaayaan. wuxuu ahaa ninkii ugu horreeyey ee si dhiib ah aan u dareemay inuu yahay kii gurigan iga saari lahaa. asagoo weli inta meel aan wada fadhiisanay aan wada sheekaysanay aysan jirin ayaan macnaha tamaniyeyba kii gurigan iga bixi lahaa in uu noqdo. ugu dambayntiina waa aan heshiinay wiilkii, meel ayaan wada fadhiisanay, waa aan isbaranay. aniga waxbaa iga go-an, waxna way iga dhex guuxayaan. jacayl la jilo, waqti dheer la lumiyo, in maxaa la dhahaa ii sheeg shukaansi dheer la jilo waxay ka go-naan kartaa ama xal u arki kara gabar ay noloshu isugu toosan tahay. markii aan 15 beri taqriiban la sheekaysanayay ayaan anigii waxaan ku iri aboowe soo dhawow, aniga ma waxaad igula sheekaysanaysaa hadafkaaga iyo ujeedkaagu uu yahay shukaansi waqti dheer iska qaata, mise waxaad iga rabtaa guur iyo mustaqbal iyo inaan sawjad kuu noqdo aadna sawj ii noqotid? waxaad moodaa wiilkii inuu hadaladayda ku farxay. wuxuu igu yiri waaba raadinayayba gabar ay ka go-an tahay inay mustaqbal samaysato, la fuudo wadawaraan ama iska daba wareegsi gabar aanan rabin. waxaan ku iri walaalo anigu ceeb uma arko in aan iraahdo nin walaalo haddii aad guur rabtidna aan isfahano ahlan wasahlan, haddii aadan guur rabinna nagu kala wad, waayo anigu sheeko dheer diyaar umaba ihiba. kadib wuxuu ugu yiri dhegeyso, anigu horta waddanka hadda ayaan kusoo laabtay, waxaana raadinayay gabar aan nolol la wadaago. waxaad moodaa nasiibka iyo calafku inuu aniga iyo adiga iskaanya tusay, laakiin ay rin ayaa jirto. mar dhow ayaa ciddeena waxaa gashay
tacsi oo waxaa dhintay abtigay xaqiiqatan abtigay intii uusan dhiman waxaan qorsheynayay gabadhii aan barto baryo kadib in aan guursado laakiin waxaan kaa codsanayaa calal aqali inta abtigay geeridiisa ay 2 bil ama 3 bil kasoo wareeganayso in aan sii wada sheekaysano haddii aad rabtid aniga keligay cidaada waa aan u tagayaa haddii aadan ku qanacsanayna oo yacni haddaad qanaaca igu qabtid ood kalsooni igu qabtid anigoo aadin ayaan sii wada sheekaysanaynaa haddii kalsooni darre ay ku haysana hooyada ama aabbaha ciddii joogto ayaan u tagayaa waa kaa doonanayaa xilligaa iyo xilligaana waa aan soo gogol fadhiisanayaa okay ayaan ku iri dhegeyso waalidkay inaa iga soo doonatid oo ii soo gogol fadhiisatid ayaan sharaf u arkaa ama meheri uusan dhicin ama ha dhaco taas jooskaaga waaye laakiin calal aqali in aan kuu arko ama aan kugu xisaabtamo sida qof xabsi ka soo baxaya camal ayaad moodaa inaan gurigeena ka cararayo oo aan isleeyahay mar un gurigan guri dhaamo ma arki doontaa adigoo nolosha midda aad rabtid ku noolaanaya xilligan aan idiin sheegayo ma jiro da'da 15 sano oo waqtigu waayuhu waa socdaan waxaan ahayaa yacni taqriiban ama 18 19 meelahaas ayay tahay da'daydu ugu dambeyntii wiilkii wuxuu igu yiri okay waalidkaa isoo bar aniga waalidkay ayaan ku soo barayaa sida ayaana aniga iyo adigu u noqonaynaa 2 qof oo 2 bil kadib yacni aqal gala waxaan ku yiri marka hore adiga waalidkaa maadaama tacsi inta ku soo gashay arrimahaas gurigeena looga mashquulsan yahay aniga isoo doono falaa ba'sa biha uu dhahay in la dhaho gabadhaan yacni inaan dhaho gabadhaan aan rabaa inaan mar dhow doonto wax barobaleena mala farxadda iyo damashlaynteena unbaa dib noo dhigaysa moogiye hadda haddii xataa meher aan borobaleen wadanin oo aan durbaan iyo adduunyo la tumaynin aan wada gelayno justi meherkeena waa ka dhiga karaa waxaad moodaayay tiri leero caafimaad inay imarayso oo din igu taagneedba inay iga soo fuqda markii uu yiri meherka ayaan marka hore wada dhiganaynaa ugu dambeyntii waxaa dhacday inaan ka aqbalay oo ku iri wax ka fiican oo aad ii sheegi lahayd ma jire marka hore meherka ayaan wada dhiganaynaa mar allaale iyo markii aan ismehersano kadibna dee ilaahu maa 5 bil xataa qaadatid falaa ba'sa biha waa aan ku sugayaa xilligan waxaan dhiganayay dugsigii sare dhammaadkiisii kabacdi wiilkii wuu isoo doonanayay aabbahay ayaan u sheegay taqayul hooyada intuu tegay ma aanan dhihin hooyo gabadhaadii lasoo doonanaya ayaan ahay kalsooniba kuma qabin inay iga soo horjeesanayso oo guurkayga diidayso ayaanba u maleeyaa aabbahay ayaan u tegay waxaana ku iri aabe hooyo adiga u sheeg waa laguu soo gogol fadhiisanaa mar allaale iyo markii aan abba u sheego wuxuu igu yiri aabe waa ceeb gabari in hooyadeed looga turjumo ama aabbeed intay wax u sheegato aabbihii uu wax usii sheego haddana saastay tahay aabbahay wuu ogaa aniga iyo hooyaday meesha aan kala joogno in hooyaday aanan aniya ayada isku fiicnayn aan isku ahayn dab iyo baasiin aadna ay ii necbeed anna xuqdadii inta i buux dhaafisay aan xataa u maleeyo islaan aabbahay uu qabo ugu dambeyntii waayahay ayaan ku iri habeenada ka mida ayaan ku iri hooyo war farxadle ayaan kuu wadaa waxay igu tiri sheeg kheyr bal maxaa waaye warka farxadle aa ii wadid kadib aabe ayaa markaasi naga agdhowaa waxaan ku iri hooyo aabbana weli uma aan sheegin waa sida aabba uu asagu igu dhahay dheh aabbana weli uma aanan sheegin hadduu maqlaa laakiin adaa hooya adaan kuu sheegaa waalidka waa sida uu ilmihiisa asagu u kasbado kabacdi ayaan waxaan ku iri hooyo wiil ayaan keensan rabaa waana aan guursanaa isla markiiba waxay iigu jawaabtay naa maxaa ku bursanaayo maxaad ka cararee ma gurigaanaa balaaya kaa bursanee markaasaan ku iri maya hooyo waxba igama bursanayso aabbaa soo booda wuxuu ku yiri war gabadhu haddii ayba guur iyo guri xalaala ayba gelayso waaba wax lagu farxee ugu hambaliyey ma aan wax laga soo horjeestee kabacdi ayay inta soo bootay ayaa waxaa moodaayay tiri 2 naagoo laysla qabo waxaa moodaayay tiri gabar iyo eedadeed sida ay hooyaday macnaha ii faquuqayso waxay tiri marba haddii adiga la iga kaa guursanaayo oo adiga oo gabar ah gurigaana aad ka baxaysid waxaad moodaa nabar inuu iga kaa fuqaayo yacni nabar igu taagnaa inaa iga fujinaysid macnaha maxay ka dhigan tahay waxaa laga yaabaa ilmo garac oo kale inaa ii keeni laheyd waxaan wadnaha farta ugu haayay oo aa isdhahaayay amay balaayo ayadoo jiidays ay kuu keentaa
saa unbaa kuu soo sawirmi karta. aad ayaan u niyad jabay, aad ayaan u qalbad jabay. anigu ficlan kama been sheegaaye, niman waa la sheekaysa jiray, waa shabi jiray. risiqii aan waalidkay ka waayo ayagaan ka qaadi jiray. gabadha iskuulka ila dhigata midda dariskeena baati qurxoon markaan ku arko oo hooyaday iraa iigad, oo hooyaday maanta aabba dhaqaale wixii uu soo helo uu ayada u dhiibaayo, ima aysan gedi jirin. walaalahay dooqa ay ayaga iisoo dooqaan unbaan gasho jiray. weligeeda ima dhihin kistaan hoo ee adigu maanta dooqaaga ka soo ciyaar, maba ahaynba wax joos leh. ugu dambeyntii waxaa dhacay marka hadaladii markay igu tiri ayaan waxaan ku iri hooyo, anigu weligay allahay kuma fakerin waxa aad sheegaysa inay igu dhacaan, laakiin ogaada waxaan maqli jiray libaaxa kan qaylinaayo iyo kan aamusan keebaa daran. aniga waxaan ay igala cararayso inkastoo walaalahay aysan macaasi gelin, haddana hooyaday maxaa u dambayn doono gadaal ayaad ka ogaa doontaan. kadib ayaa waxaa dhacay marka meeshaan farxad ka qaadi lahaa oo hambalyo iyo guurkayga laga sheekay lahaa, niyad jab ayaan ka qaaday. ugu dambayntiina hooyo hadalkii waa bedashay, maadaama aabba uu ku yiri gabadha saa ha dhihin. waxay tiri haye sheeg yaa ku soo doonanayo. qabiil hebel iyo qabiil hebel nin yay kala dhaleen, hooyadiisna qabiilkaas tahay, aabihiisna qabiilkaa yahay ayaa isoo doonanaa. kuwaas waa kibir badan yihiine, naagahana waa garaacaane amay ku soo garaacaan. dayro ayaa haddana iigu soo xigtay. dhib ma lahaan dhaha kolley ragga dhan oo qabiilkiisa ah u malaymaayo inay wada yihiin, maybe qayb ka mid ah inay yihiin ayaan ku idhi. hadalkii maba aanan u sii xumaynba. kabacdi ayay waxay igu tiri warkii aan sii sheegay xilliga la isoo doonanayo okayay tiri. bacdeen aabbaa haddana sheekadii sidii in aan hadda u furfuraayo uga dhigay. aabbaa warkii qurxiyey, wax ka wanaagsan oo aan noo soo sheegi laheed ma jiro, ee gabadhaydii mid keliya ayaan rabaa inaan kugu darsado. waxaan ku yidhi aab maxaa igu darsanee oo maxaad yacni rabtaa inaa idhahdid? waxaan kugu darsanaa huu dhahay intaasaan wax ku soo baraaye dugsigii sare waxaa kaaga dhiman hal galaas oo keliya, ama galaaskan hadda dhammayso, ama haddii aadan dhammaysan karin gabadhaydiyey mar allaale iyo markii aad guursatid horay iskoolkaagii u dhigo oo yaysan dhicin in waxbarashadaadii aad dayacdid. waayahay ayaan ku idhi. bacdeen wiilkii ayaan xilligii loogu talagalay in gurigeena aan ka casuumno. hooyo ma dafiraayi, si qurux badan ayay usoo dhaweysay. casuumaad inaba aan caadi ahaynoo aad u cajiib ah ayaa reerkii loo suubiyey. halkii ayaa meher ka dhacay. mar allaale iyo markii meherkii uu dhacay ayaa hooyo waxay bilowday ileen isma ayna dhehaynin ayadu, maadaama wiilku uusan waqti cayiman uusan sheegin, uu yiri sida ugu dhaqsiyaha badan ayaan gabadhan ugu soo usoo doonaa oo jawaabtayda a u heli doontiin. isla markiiba bil markay kasoo wareegatay meherkaygii oo wiilkii aysan dhicin gurigeenna inuu iigu imaado maahane, aysan dhicin in meel kale oo qaas aan isugu tagno. anigana go-aankaygaba uu ahaa walaala waalid baad iga doonatay, sharaf baad ii mehersatay, reerkaygaas iyo gurigaygaas iigu imaa. ma rabo anigoo sharaf iyo cisi aad igu soo doonatay in luluuqyada iyo banaanada wax la ii geliyo. waayuhuu ku yiri raalliyuu ku ahaa, wuuna imaha jire. laakiin maxaa dhici doono haddii aan saaxiibaday aado, asagaan jiraa. haddii aan waxbarashada kusoo daaho, asagaan jiraa. ilaa hooyaday inay tiri haa annagaa waxaana loo keenay meher beenbeen ah, macnaha saan maa lagugu soo doontay. waxaan u malayhaa saad u joogtid adigoo walaxa inaan ku arko. waxaan u malayhaa saad u joogtid in la yiraahdo sidan ayay noqoto walac ay noqotee, hadda maxaan ka falnaa? waxaan ku iri hooyo suuriye fara badan adigoo lacag lagu siiyey, aabboo lacag la siiyey, intaas ninka awooday miyaa ii awoodi waayey inuu guri ii sharaxo? hooyo duruuftaas iyo duruuftaas ayaa wiilka kan haysata ma ogiye, ma haysato wax la dhaho in wiilkaani uu sabab uu bannaan inta caloosha iigu buuxiyo meelahaas aan isaga marmaro. duruuftaas ma haysato. waa arki doonaa. yaa anigu wax maba sheeginba, waxba ma aqaanaba. hebelow adaa bixiday. dad waddanka isla joogo oo ismeher haysto yacni isqabo oo haddana la leeyahay waqti hebelaa sugaynaa, bil hebelaa dhiman, bil hebel kalaa dhiman. anigu cashirka noocaasa ma aqaan. habeen iyo maalin wax kale iska daaya. habaryaashay markay imaadaan meeshay hooyaday iga difaaci laheyd
oo ay dhihi lahayd gabadhaydii nin kaal aragaa soo doontay lacag adduunyaa sidaa ogtiin laga bixiyey berina maxaa la dhahaa isheeg aroosi adduunyaha noo soo socdo ee eegay laxamataa waa aan maqlaa ugu dambeyntii say ayada rabtama aysan dhicin 2 bilood intii aan ku jirnay wiilka hadduu u yimaado waa soojkayga wuu ibiishaa lacagta waxbarashada wuu iga dhiibtaa waxaan iri marka aniga xataa oo isugu keen aadaysay maadaama iskoolka fasal kaliya uu ii dhinaa doono oo 2 bil oo fasaxa ay soo dhowdahay 2 fasaxa aan ku aakisano 2 bil adiga aa qabsatay 2 bil kale aan ku sii darsano laakiinse anigii isla sidaa iri ayaa waxaan ku iri 2 bil aa qabsatay markay kuu soo dhammaato sida ugu dhaqsiyaha badan walaala isoo doono wiilkii intuusan mar labaad imaan oo arooskii iyo adduunkii aysan dhicin ayaa waxaa dhacday inuu waalidkiis iyo walaalihiis inuu isoo bara bilaabay gurigooda u geeye hooyo aad u naxariis badan oo aan jeclaadaba oo aan is-iriba booskii hooyanimo aad la eed ayadaaba kuu gelayda ayaa waxay tiri ii gashay hooyaday markuu meher igu dhacay waxaa ii xirnaa dahab ayadu ay gabar markaan yacni inta ninkan uusan isoo doonanoo ninkan baqadka uusan soo gelin ay isiide sad yaryariisa oo gurjoog ah waxaa la igu yidhi abaayo sadkan waa inaad iska dhigtid sadkii bedeli lahaayna ninkii kuu gedi lahaa waa inuu ninkaani noqdo waa aan u siibay fartaanka saare u fiirso maamadii markii la isoo baray waxaad moodaa dhagahayga dahabkii laga siibay in ay og tahay waxay hadiyad ahaan ii siide sad dahaba oo yar oo aanan aad u weyneyn waxay isoo siiday dhar waxayna itiri ku soo dhawow meel lagaa jecel yahay wiilkii aan wiilasha u jeclaa ayaad marwo u noqonee gurigan ayaadna ku noolaa doontaa gabar gabdhahayga ka mid ah inaad noqotidna waa aan rajaynaa in sida aan gabdhahayga u jeclahay inaan kuu jeclaadana waa aan rajaynaa aad ayay hooyadaasi hadalladeeda ii deeqeen ugu dambeyntii waxaan dhararay gurigan intii aan kusoo yacni waxaan sugi waayaba marka aan kusoo biiraayo goorta ay noqonayso waqtiga iyo waayuhu wuxuu isguraba waxaa la gaaray xilligii aroos kale ii dhigi lahaa waxaa la yidhi bishu hadday i jeceshahay bakool muxuu iga taraa ilaahay hadduu kula jiro dunida oo dhanna waxwaaye asaga ayaa gacanta kuu geli karo aroos waxaa la ii dhigay mashriq iyo maqrib dhagaha faraha la wada gashtay dan waxaa ceeb keliya la iiga dhigay naayaa oo haddama guri sodohaa laguu galbinaa haddaa godkaaga biyo kuugu soo galeen hadday kusoo kalbakalbayne haddaa balaayo kaa raace aasaan iraa hooyadii dhashay ayaaba waxaan ogaa kala kulmee islaan islaameed oo aanan i dhalin waxaan kala kulmo wax umaba arkaba ee waxaan iri marlee gurigayga hala ii galbiyo aabbahay ayaa galab ka mida ii wacay galbaha intii aanan la i galbin ilaan afkii hooyo uu wax ka soo qaaday ayuu ku hadlaa wuxuu igu yidhi aabe wiilku maadaama uu yahay nin shaqaysto isku toosan lacag la-aan aynan hayn muxuu guri gooni ah kuu daji waayey waxaan ku iri aabe asaga ayaa wuxuu igu yidhi hooyaday intaasoo sano ayaan ka maqnaa hooyadiisna way ii sheegtay inay muddo kala maqnaayeen oo wiilkeeda ay rabtay inay dugaashato guri aad u weyn way degan yihiin qayb dhan ayaana la dejinayaa gurigu maadaama uu yahay guri taqriiban 2 boos ka kooban anaga iyo ayagu ismaba arkaynaba anigu sadohdaasna uma arkaba in xumaan ay iga imaanayso qof waalidahoo gurigeeda aan galay unbay iila muuqataa wuxuu igu yidhi sida aad jeceshahay laakiin ogow isku badnaaw sidii wuxuu ii waaniyey booskii hooyaday laga rabay inay ii waaniso halka hooyadayna ee ilaheed guri sadoh u malaymaayo inuu noqonayo guri dhismee sadoh haddiiba gurigeeda la degi rabo meeshaan mustaqbal inuu kasoo socdo u malaymaaye gabaray alla macag ugu dambeyntii arooskaygii wuxuu qurux badnaadaba alaab waxaa la ii dhigay tir ayaanay fartayda aniga aan ku dooqde oo aniga aan iri kanaan rabaa bacdeen waa la i galbiye awal maxaa ceeb la iiga dhigaaye allah guri sadohay u socotaa balaayaa ka raaci doonto
kowdina maxay ahayd ninkan hadduu mehersaday waxa waaye meherka waa qooto gurigii markii la arkay waa laisqunjiyey si kale uma taqaanide kuwii dad iigu xigay oo walaalahay ahaa ayaa isqunjiyey naa halkay ka heshay naana sii badanaa kaaga sii darana waxay tiri waxaa laislahaa sodohda iyo ciddu saasay isugu dhex jiraan laakiin 2 qol iyo meel baranda camal ah gurigu waa guri weyn oo 2 boosehe oo isku go-an qolna inta jiif la ii dhigay qolna fadhi la ii dhigay waxay tiri meesha barandada camalana annaga le oo intaas noo xirmee meesha barandada camalana waxaa la ii dhigayay tiri qado ayadoo saa isuga xilligaasi weliba waxay soo baxayday tiri qada in la dhigdhigto dadka high galaaska ah ayaana dhiga jiri naa waa la isqonjiyey tiri naa sodo inay la degantaa ma moodid alaabtayda iyo adduunkayga iyo waxaan cunto ku karsanayo iyo jikadaydana waaba ii gooniyey tiri ani bacdeen haddii la isqonqonjiyey waa la soo qulqulay aniga waa aan u jeedaayo maamadan waa aan bartay wax xumaanana kama aan filanaayo anigana anaaba soo gubtayoo hooyadii i dhashay silac iyo saxariir ka soo maray oo sida gabar xabsi ka soo baxday ayaanba mar taaganahay dheer caafimaad hay soo martee guri aan layaha mar un ma aadi doonaa 7 ayaa la iigu yimid 7dii dhexdeedii ayaa hooyaday waxay 7dii ka dhex bilowday foodo iyo in arooskii buuq ay ka furto ma ahan dhoocil ee isla hooyaday ayaa waxaa moodaa dhoocil inay la hariiftamayso siday ciddii wiilka iyo sodohday ay u hariifaysa darteed aase waxay tiraa ma kuwaanaan la dhaqmi doonaa ma kuwaana maxaa la dhahaa ani ayaga nolol inta gabar aan dhalay ay la wadaagto aan dad isdhexgala noqonayna dhaga hadal babababa habriyaal marka waa yaaban yihiin naa magwaalatay naa naga aamus naa haddalee gabadhaada gurigeeda dhisme naa alla ku ceebeeye aamus waxaa qabtid laq ugu dambeyntii anigoo isku yaxeexaayo oo aniga dhan nooc kale aan ahay ayaa hooyaday waxay tiri raaligeli aan maage laakiin markii aan raaligelin ugu tagay oo ay sodooda intay afka u furatay ay tirinaayaa waa qumayo tay kugu dhigi doontaan anigu ilaa hadda gara la ahay waa kan maskiinaysan kaa dhige musiibadoo dhanba ayada abaabushay amar badanaa naagtu intaan saan waxyeelnay seeno amri karta aan raaligelin u dhigalay hooyo saas ma ahan kan maahan aasaa la iri naga foq sinjiyadaada iyo farcaagaba naayaa maxaan dhahnaaye arooskii 7daydii aan dhehe wuxuu isku bedelay murugo ka waran xilligii taashka lagu saari lahaa oo ay waxyar ka dhiman yihiin oo arooskii dadkii yacni 7da iyo arooska waa isku mide macnaha kuu imaada dhan ay saa wada fadfan yihiin hooyadaa inay kugu soo hor dhaqaaqdo sida caadada ah gabadha shaashka hooyadeed ayaa ku bilowdo aniga shaashkii sodohday ayaa igu bilowday habaryaal ayaa booskii hooyo buuxiyey oo ayaga ayaa isaaray ilmadu waxay iga tiraahdaa shabababababababax waxaan isweydiiyaa hooyada tani miyaysa ku dhalin maxay farxadaada kaaga jiiree wax walba ay dareemayso calal aqale calashaankaaga may u laqdo ugu dambeyntii waa la iga soo wada qulqulay anigii ooyin ayaan qolkii inta galay ayaan la fariistay 2 habaryaashee ayaa ii haray waxay igu dhaheen hooyadaa waalida waa ku ognahee abbaaya reerkaaga dhaqo aqligaaga ka shaqaysii wax ma kuu sheegaa gurigaaga yuuse kaa dumin waxaan iri wadar iyo waaxid yaa waalan hooyadayna waayada igu hor dhaqaaqday habaryaashayna waa iyaga ileh gurigaaga dhaqo ugu dambeyntii gurigaygii ayaan iska dhaqday dan waxaa dhacdaya tiri dharkii maadaama gabadha dhar iyo adduunyo loo keeno inay 7 baxdana la rabo hooyana maalinkii sodohday iyo dadkii ninkan ka soo jeeda dhan ay igu ceebaysay oo sodohda tani siday u afgaaban tahay wiilkeeda saa markuu usoo galay hooyadiisu ku hormaray umaysa soo sheegin aniga markuu ii imaado ooyintayda ka yaabay unbuu waxaa igu dhacay i weydiiyey waxba kama qarin soojkayga waa la wadaagay waayo qof aan ku nafiso maba aan haysto waxaan sameeyey tiri wixii aan dareemayo dhan ayaan ku qabay wuu ii aqli celiyey wuxuu igu yiri marka aad 7da ka baxday dabcan caado iyo dhaqan waxaa noo ah soomaha in hooyo la aado
oo nala casuumahaa hooyaan u tagaynaa lacagna waa u geynaynaa waa aan raali gelinaynaa bacdeen waxay tiri ayaane habaryaashayaan waxaan ku yidhi habaryar hooyaan rabaa inaan u tago ee la hadal aniga iyo hebel maalin hebel ayaan kuu imaanaynaa dheh waxay ii soo fartay wejigeeda ma aan arki karo meel aan taaganahana sooma istaagi karee cidda ee iga dooratay naayaa igama soo daba dhaqaaqin gabar waxaa la arki jira hooyadeed xataa hadday ka xanaaqdo kasoo daba ordo kasoo daba oyde salkeediiyo fadhida naanaag dhanoo waxay tiri sax waaye hooyada inaan ka daba ordo way ahayd laakiin dadkii dhan igu hareeraysan miyaan ka daba ordi karaa aniga xilligaas waa aan xishooda isla weyne iyo kibir iguma aysan jirin wiilkii fikraddii markuu isiiyo habar u sheegay waa ay diido hooyo agtayda ma imaan kartay tiri asagii aan la sheergareeyey wuxuu igu yidhi dhegayso warkeeda iska daa guriga waa ka duldhaceynaa waxay suubiso bal aan arkaynaa ninkanay tiri talooma igu nici doonaa mise wuu igarab istaagi doonaa hooyada guurkaygii bilowgiisii sidaan igula dhaqante ayaanay gurigii markaan garaaco oo la yidhaahdo hooyo hiblaayaa timid casuumaad iyo waxna aanan ku tashanayn weji noocee ah ayaan kala soo kulmi doonaa anigoo wado lacag iyo dhar iyo adduunyo maxaa abaalkaygu noqon doonaa maxaanse hooyaday kala soo kulmi doonaa la soco qaybta labaad